Jimco wanaagsan saaxiibta qiimaha badan meel walba oo dunida ka joogtaan. Kusoo dhawaada xubintii fanka Hindiya oo maanta waxay ka dambeeyay aan joogto ka dhigi doono. Abal toddobaadkii hal jeer ama laba jeer ayaan soo qaadanaynay, laakiin hadda kadib joogto ayaan idinkaga dhigaynaa maadaama tiyaatarada dalka Hindiya la furay. Haddaba qodobada maanta aan idiin hayno ama idiin soo gudbinayno waxaa ka mid ah nolosha gaarka Iraani Muqarjo aan falanqeynayno, sida inay la dagaashay walaasheed Kajal, Govinda oo gabarnimadeedii lumiyay, Fifig Oberoi oo lagu xantay, ninka guursaday oo foolxumo lagu sheegay, iyo arrimo kale oo xiiso leh ayaan Rani Muqarjo kaga hadli doonaa. Qodobka labaad waxaan kusoo qaadanaynaa nin booliska qabteen, ninkaasoo toogtay Hrithik Roshan aabihiisii, waana la xiray ninkaasi. Sidoo kaleetana waxaan ka hadlaynaa Salman Khan oo guurkiisii ka hadlay, Kajal Agrawal oo idana shaacisay inay guursanayso bishan dhexdeeda iyo ninka guursanayay. Sidoo kaleetana waxaan kusoo gabagabeynaynaa filimada dhowaan la daawanayo, kuwa duubista ku socoto iyo kuwa tiyaatarada la saarayo. Intaas ayaan kusoo qaadan doonaa. Kanaalka hadda ku cusub subscribe saaro, gambaleelkana hilaaban, share, like, comment-na kama marno. Mahadsantiin. Aan ku bilowna marka hore qodobka koowaad oo ah ninkii isku dayay ama toogtay Hrithik Roshan aabihiisii. Ninka waxaa lagu magacaabaa Sunil. 3 maalin ka hor ayay booliska gacanta ku dhigeen. Ninkan wuxuu toogtay Hrithik Roshan aabihiisii, dad kalena wuu dilay. Hrithik Roshan aabihiisa wuxuu dilay ama uu toogtay sanadkii 2000, waa 20 sano ka hor, markii filimkii Kahona Pyar Hai uu soo baxay oo Hrithik Roshan lagu soo canbixinayay. Filimkaasi gooshiisa iyadoo loo dabaaldegayay xilli habeen ah iyo xaflad dhigteen reer Roshan, ayaa ninkani 6 xabadood ku furay Hrithik Roshan aabihiisa Rakesh Roshan oo gaarigiisii sii galayo. Mar allaala markuu odaygii gaariga sii galayay ayaa 6 xabadood lagu soo tuuray. 2 ka mid ah ayaa ku dhacday sida la sheegay, waliba mid ka mid ah waxay u dhowaatay ama sigtay inay wadnaha kaga dhacdo in uu jirto millimeter. Haddaba ninkani 3 bilood u dambeysay waa la baadigoobayay sababtoo ah xabsiga ayuu kasoo faktay, dib dambena uguma soo noqon. Haddaba booliska ayaa ugu dambeyn magaaladii Mumbai ka heleen, hadeerna waa la xiray sababtoo ah waxaa lagu soo eedeeyay 11 kiis oo dil ah iyo 7 kiis oo isku day dil ah. 11 kiis oo dil ayuu geystay oo dad uu ku dilay, 7 jeer kalena wuxuu isku day inuu dadkii dilo. 7daas jeer waxaa ka mid ah dadkii uu isku day inuu dilo Hrithik Roshan aabihiisii Rakesh Roshan oo 20 sano ka hor uu isku day inuu dilo. Haddaba ninkan intaanoo sano waa la baadigoobayay, ugu dambeyn hadeer waxaa lagu xukumay xabsi daa'in ama cimrigiis inta ka dhiman xabsi ayuu ku jiri doonaa. Waana magaciisa waxaa lagu magacaabaa Sunil, waana 52 jir. Qodobka labaad, megastar Salman Khan ayaa ka hadlay guurkiisii. Dhowaan wareysi lala yeeshtay mar wax laga weydiiyay noloshiisa gaarka ah, wuxuu yiri, anigu cimrigayga inta ka dhiman guursan maayo, arooska waan ka daahay, waqtiga loo baahnaana maanan guursan, hadda kadibna guursan maayo. Markaa Salman Khan ayaa ugu dambeyn shaaca ka qaaday inuusan guursan doonin. Haddaba jilaagan muddo dheer ayaa guurkiisii la hadal hayay, wax badan ayayna taageerayaashiisa isweydiinayeen xilliga uu guursan doono, laakiin Salu ayaa hadeer sheegay inuusan guursan doonin, cimrigiisa inta ka dhiman doobnimo uu ku dhammaysan doono, waxaana lagu tilmaamaa doobka ugu weyn fanka Hindiya maadaama uu yahay jilaa superstar megastar ah. Sidoo kaleetana fanka Hindiya maqaam sare ku leh oo ilaa hadda uusan guursanin, xilli qaaniska kale ee caruurtoodii dhowrka ordayeen qaarkoodna waaba qaangaar dhammaantoodii inta ugu badan. Qodobka saddexaad wuxuu yahay atriishada caanka Kajal Agrawal ee koonfur iyo Bollywood kaba caanka ah ayaa si rasmi ah shaaca kaga qaaday inay bishan dhexdeeda guursan doonto. Kajal Agrawal sidaan wada naqaano waxay kasoo muuqatay filimo caan ah. Filimada koonfur kuwooda ugu caansan waxaa ka mid ah filimka Magadheera ee Meg Ram Charan la sameysay. Filimkaasi oo la daawaday 2009 wuxuu noqday filimkii ugu weynaa koonfur Hindiya sameysay xilligaasi. Darajada all time blockbuster ayuu gaaray mashruucan, ama waa filim dakhli fara badan soo xareeyay ganacsi ahaan. Inkastoo gadaashiis filimo ka waaweyn ganacsi ahaan iyo darajo ahaanba ay koonfur sameeyeen, laakiin xilligaas wuxuu ahaa filimkii ugu weynaa. Kajal markii Bollywoodka la imaaday filimo kale oo caan ayay kasoo muuqatay, sida filimka Sangam oo Ajay Devgan la jeshay, filimkaas ayay kasoo muuqatay. Haddaba atriishadan ayaa shaaca ka qaaday inay guursan doonto 30 bishan Oktoobar, waxayna guursanaysaa nin ganacsade reer Delhi ah oo lagu magacaabo Gautam. Ninkan ayaa muddo dheer daba socday gabadhaani, ugu dambeynna waxay ku heshiiyeen guur. 3 bil ka hor waxaa la sheegay si xan ah loo soo sheegay in gabadhan ay dhow guursan doonto, iyada afkeedan ay kaga shaacinayso. Haddaba Kajal ayaa baraha bulshada kaga shaacisay, qoraal rasmi ahna soo saartay, kuna sheegtay inay 30 bishan guursan doonto. Kajal Agrawal
waa mid ka mid ah tirishooyinka doobka muddaday in badanna la filayay inay guursan doonto. Haddaba qodobka saddexaad halkaas ayaan kaga bixinay. Qodobka afraad waxaan gudagalaynaa nolosha gaarka ah tirishada caanka Rani Muqarji. Maxaa xan ah oo laga qoray, maxaase xaqiiq ah? Boqoradii hore ee Bollywoodka Rani Muqarji nolosheeda wax badan ayaa laga qoray oo isugu jiraan kuwa xan ah iyo kuwa xaqiiq ahba, balse dadka baareen oo ogaadeen ayaa yar marka lala barbar dhigo kuwa aan wax ka ogeyn. Maqaalkan wuxuu noqon doonaa mid taxane ah oo maalin walba qodob aan kaga soo qaadan doono guud ahaan dhacdooyinkii kala duwanaa ee nolosha Rani Muqarji soo mareen, sida dadka isdagaaleen, dhibkii soo gaaray iyo xanta xiriirka nolosheeda gaarka laga qorayba. Intaas ayaan idinkugu soo falanqeyn doonaa. Maalin walba fankii Hindi qodobka aan kasoo qaadanin waan kusoo dhex dareynaa. Maanta waxaan ka hadli doonaa xurguftii dhex martay Rani iyo walaasheedii Kajal. Sidoo kale xurguftii dhex martay Rani Muqarji iyo Jaya Bachchan oo ah xaaska Amitabh Bachchan ama Cali Dheere xaaskiisii. Haddaba xurguftii dhex martay Rani iyo walaasheedii Kajal aan ka hormarno marka ugu horeysa. Labada atrisho ee maqaamka ugu sareeya fankii Hindi ka wada gaareen waa ilmo adeero ka wada dhashteen qoyska Muqarji, haddana weligood sida dad shisheeye wada ah oo kale ayay u dhaqmi jireen oo wayba isnecbanaayeen. Dadkana uma aysan muujin jirin nacaybka isku qabaan oo waxay iska dhigayeen dad isjecel, waana ilmo adeero Kajal iyo Raniba. Ilaa sagaashimaadkii ayaa lala yaabanaa inaysan saaxiibo dhow ahayn, wax kulan ah ama sheeko ahna aysan dhex mari jirin marka laga reebo inay shaqo filim ku wada kulmaan mooyee. Sheekada waxay cirka gashay oo dagaalkoodii lasii boonbooniyay sanadkii 2012. Xafladii loo dhigay filimka Jab Tak Hai Jaan sanadkii 2012 Kajal laguma casuumin, waxaana xafladan dhigeen Yash Raj Films shirkadda la dhaha iyo dadka iska lehba oo Rani ay qayb ka tahay, maadaama Rani saygeeda Aditya Chopra yahay hogaamiyaha shirkadani. Kajal xaq ayay u lahayd in lagu casuumo ee baryo ma ahayn. Weliba martida kasoo qayb gashay xafladan iyada iyo SRK ama Shaaruqan ayay ugu mudnaayeen maadaama ay shirkadan soo garab qabteen markii ay burbursaneed. Waxaana xusid mudan in Kajal iyo atrisho koowaad ka ahayd filimka abid ay ku faanaan shirkadan Yash Raj Films ee lagu magacaabo Dilwale Dulhania Le Jayenge. Filimkana waxaa la daawaday sanadkii 1995 waxaana hogaamiyaal ka ahayeen Shaaruqan iyo Kajal. Filimkan waa filimka ugu weyn fankii Hindi taariikh ahaan, waxaana kusoo xiga Sholay. Filimkan daafaha caalamka ilaa maanta waa laga wada jecel yahay, iskooro waaweyn ayaana u yaalo. Waxaa dhacday in Kajal lagu casuumin xafladan, ceeb weyn ayayna ku noqotay reer Yash arrinkaas maadaama aysan ku casuumin gabadhan. Dagaalka labadan atrisho meel sare ayuu sii tegay kadib markii Ajay iyo Kajal si ku talagal ah ay u inkireen una agmareen Rani Muqarji xilli ay goob xaflad ah lagu wada sugnaay ay ku wada kulmeen, wayna agmareen xafladii ma aysan salaamin, wax salaan ahna ma dhex marin, xitaa kaamiristayaashii meesha ku duubayeen ayaa la yaabeen. Haddaba labadan atrisho cuqdada ka dhexeysa maxay tahay? Hal mid ayaa asal u ah in labadooda aysan necbanaayeen maadaama ay fankii Hindi ka wada tirsanaayeen. Xifaaltan ayaa ka dhexeysay. Sideeda banaan waxaa la dhahaa ilmo adeerada way isnecban yihiin. Marka labadan atrisho dagaalkoodii sagaashimaadkii ayuu soo bilowday, intaasoo soo jiray, haddana waxayba isku sii dhaceen 2012. wixii markaas ka dambeeyna waxay isku sii dhaceen xafladii ay ku agmareen Kajal iyo Ajay Rani oo goobta ku sugneed. Haddaba falanqeynta Kajal iyo Rani xurguftooda intaas ayaan kusoo gabagabeynaa. Xantii laga qoray iyo wixii xaqiiq oo qarsoon anaga ma ogno. Qodobka labaad wuxuu yahay isla oo Rani Muqarji nolosheeda ah, xurguftii dhex martay Rani Muqarji iyo Jaya Bachchan oo ah Amitabh Bachchan xaaskiisii. Waxaa jirtay xilli Rani Muqarji ay aad uga ag dhaweyd qoyska reer Bachchan, waana bilowgii qarnigani. Haddaba Rani ayaa lagu xaman jiray inay xiriir jacayl la lahayd atooraha Abhishek Bachchan, laakiinse xiriirkaasi waxaa kasoo horjeeday Jaya Bachchan, inkastoo Amitabh Bachchan uu isagoo la rabay xiriirkan oo Rani ama Aishwarya midkood ayuu la rabay inuu wiilkiisii u goriyo, laakiin Jaya Bachchan kama aysan helin muuqaal ahaan iyo dabiicad ahaanba gabadhan Rani ah. Sida awgeedii xiriirka Rani iyo Abhishek ka dhexeeyay ayay ka taqlustay sida la sheegay, sida xanta qorayso ee warkan rasmi ma ahan. Markii dambe waxaa la arkayba Jaya Bachchan oo xafladaha ku inkiraysa gabadhii Rani ahayd. Markii dambena Rani waxay go'aansatay inay qoyskan faraha ka qaado, ninkan Abhishek ahana isaga harto. Ugu dambeyna way ka hartay. Rani Abhishek dartiisa waxay isugu dhaceen saaxiibteedii Aishwarya Rai, inkastoo isku dhaca Aishwarya iyo Rani uu kasoo bilowday filimkii Jalte ee Aishwarya laga saaray.
haddana wuxuu sare usii kacay markii Aishwarya ay ogaatay in Rani ay isgaadgaad ku hayso wiilkan Abhishek ah oo Aishwarya xiriir la lahayd markaasi. daawadayaasha qiimaha badan qodobadii Rani Muqarjir nolosheeda aan ku falanqeynayn intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa, laakiin waa taxane ayuu inoo noqon doonaa. maalin walba markaan fanka hindiga ka hadlayno na Rani Muqarjir nolosheeda gaarka waan soo qaadan doonaa. haddeer waxaa inoo dhiman xiriirkii jaceylka ila lahayd Vivek Oberoi iyo Govinda oo gabarnimadeedii lumayay, sideese ku dhacday, ninkeeda oo foolxumo lagu sheegay. arrimahaas ayaan soo falanqeyn doonaa maalmaha soo socdo. qodobka u dambeeya waxaan kusoo gabagabaynaynaa maqaalkeena filimada dhowaan la daawan doono kuwa duubista lagu wado. filimka Lakshmi Bomb ee Akshay Kumar hogaamiye Kaya ayaa goosgoos laga soo bandhigay toddobaadkii aan soo dhaafnay. filimkani waa filim cabsi iyo shactiri isku dhex jirta ah. sidoo kale tan Akshay Kumar door dumar ah ayuu ku jelayaa, waayo naag reer aqraad ah oo Lakshmi lagu magacaabo ayaa dhexgali doonta, taasoo doonaysa inay argoosato dad iyada markay nolol dib gaarsiiyeen ayay doonaysaa inay ka argoosato. sida awgeedii dunida ayay kusoo laabatay ayaa la leeyahay, sida filimka sheekadiisii ka hadlaysa weeyey. kadibna waxay dhexgalaysaa Akshay Kumar oo isticmaalaysa. Akshay Kumar ayaa markaani shaashada horteeda bandhigyo shactira ku muujin doona isagoo labis dumar ah gashan doona sida goosgooska lagu arkay. haddaba goosgooskan maxaa laga dhahay? goosgooskan aad iyo aad ayaa loo ammaanay marka hore, laakiin waxay kasoo horjeesteen laba koox. kooxda koowaad waxay yihiin taageerayaasha Sushant Singh Rajput oo iyaga mucaarad ah oo dislike inay saaraan isku dayeen muuqaalkan markii YouTube-ka goosgooskiisii lasoo geliyay, iyo taageerayaasha Kangana Ranaut oo iyagana hadal iyo xumaata doon ah mar walba. laakiinse labadii kanaal ay soo bandhigeen goosgooskan dislike iyo like way kala qariyeen. labada kanaal waxay kala yihiin Disney Plus Hotstar kanaalka lagu magacaabo iyo kanaalka Fox Star oo isaga xuquuqda filimkan iibsaday. labadaas kanaalba waxay qariyeen dislike iyo like la muujin lahaa, waayo dad badan ayaa dislike saareen sida la sheegay, sababtoo ah muuqaalka viewskiisa uu batay 12 milyan ayuu sare u dhaafay, haddeer 15 milyan uu kusii dhow yahay ama uu dhaafayba. marka filimkan Akshay Kumar wuxuu la sheegay inuu ka carooday markii uu maqlay inay labadaas kanaal qariyeen dislike iyo like. marka hadalhayntiisa way badatay filimkani. waxaa kaloo la sheegay in la xatooyo lagu sameeyay oo qaab online ah haddeerba durba lagu soo dayay oo internetka email walba lagu faafiyay. inta lasoo xaday ayaa la faafiyay, dadkii xadayna laba oga baaritaan ayaa lagu wadaa. sidoo kale tan filimada kale ee duubista lagu wado waxaa kamid ah filimka RR ee Ram Charan, NTR, Alia Bhatt iyo Ajay Devgan isugu imaadeen. filimkaasi dib ayaa loo bilaabay duubistiisii, coronavirus ayaa loo joojiyay awgeed markii hore oo bishii Mars ayaa la joojiyay, laakiin haddeer duubistiisii dib ayay u socotaa, hawshiisana way socotaa. filimkan waxaa hogaamiyaalka ah Ram Charan iyo NTR, sidoo kale tan waxaa kasoo muuqan doonaan Alia Bhatt iyo Ajay Devgan. filimkan 350 karoor ayaa lagu qarash gareynayaa, inaba cadimaan waa lacag aad iyo aad u fara badan. sidoo kale tan waxaa la sheegay kooxda filimka inayba xuquuqdiisa dijitaalka iyo satellite-ka ay ku iibsadeen 200 karoor durba, sida haddeer wararka soo dhacayaan. si kasta ahaato filimkan sanadka dambe ayaa la daawan doonaa, waxay warka soo kordhan idiin soo gudbinaynaa. dhanka kale filimka lagu magacaabo KGF Chapter 2giisa oo Yash Rocky Star oo hogaamiye ka yahay, filimkan isagana duubistiisa way bilaabatay. Yash ayaana shaaca ka qaaday in duubistiisii ay bilaabatay maadaama coronavirus oo awal loo hakiyay, laakiin haddeer duubistiisii way socotaa. ugu dambeyn Kareena Kapoor ayaa shalay soo gabagabaysay duubista filimkeeda Laal Singh Chaddha ee Amirkan ay la hogaaminayso. Kareena uur ayaa leedahay, marka muuqaaladii iyo jadwalkeedii shalay ayay hawsheedii soo dhamaystirtay. si rasmi ah sawir ayaana laga soo bandhigay shalay. sidoo kale tan Amirkan wuxuu kasoo wareejiyay dalka Turkiga. marka hore Amirkan Turkiga ayuu ku maqnaa si filimkan jadwal ahaan oo Turkiga ugu soo dhamaystiro, laakiin buuq badan ayaa dhashtay. reer Hindooga ayaa ku kaceen maadaama dalka Turkiga iyo dalka Hindiya siyaasad ay ku xifaltamayeen, dagaal hoosan oo ka dhaxeeyo. sida awgeed Amirkan waa lagu kacay. si Amirkan uu shacbiyadiis oo ilaaliyo, wuxuu ku qasbanaaday inuu filimkaasi soo wareejiyo oo dalka Turkiga soo guuriyay. muuqaalo kooban ayaa halkaas lagu soo duubay, kadibna uu kasoo guuriyay. haddaba safarkaas uu galay oo bixitaankii qorshihii uu bedelay awgeedii 2 karoor ayay kooxda filimka khasaare ahaan la kulmeen. Amirkanna oo khasaarahaas uu dhabar adeegay. sidoo kale tan Kareena Kapoor jadwalkeedii way soo gabagabaysay. daawadayaasha qiimaha badan intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa maanta fanka Hindiya qodobadii aan idinkuugu talagalnay berita iyo qodobo kale oo ka xiiso badan ayaan idiin soo gudbin doonaa insha Allah. billahi tawfiiq. Assalamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.